السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo siqdaan barnaamijka Arsenal News. barnaamijka waxaa soo jeediya aniga waa Nuur Aadan Shaqra. aan tax soo qaadan doonaa waxyaabaha xiiso badan barnaamijka laakiin oo saar ku soo dhawaada marka la barnaamijka hore kooxda kubadda cagta Arsenal David Luiz ayaa ogolaaday heshiis 2 sano ah ugu biiraya kooxda Marseille sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday dalka Faransa. warbixintan ayaa sheegaysa in David uu ka tagay kooxda kubadda cagta Gunners kadib markii uu dhacay qandaraaskiisa horaantii xaggan haatan uu ku biiri doono kooxda reer Faransa. waxaa leenahay nasiib wacan David Luiz. Harley Clarke oo taayirka isbuucan lagu arkay isagoo xiran numberka Gabriel Martinelli ayaa waxay warar ku tibaaxayaan waliba majalada afka dheer ee Daily Record ayaa sheegaysa in xidigan amaah ugu biiri doono kooxda reer Scotland ee Ross County. daafaca dambeedka midig ee kooxda kubadda cagta Arsenal Cedric Suarez ayaa lagu soo waramayaa in ay la raacayso kooxda weyn ee reer Turkiga ee Fenerbahce sida ay sheegayaan wararka. Takvim ayaa soo warinaya in kooxda kubadda cagta Fenerbahce ay doonayaan inay amaah ku qaataan xidigan taas oo ay tabatar inay ikhtiyaar u leeyihiin inay iibsan karaan. daafacan ayaa 29 kun u saftay Arsenal tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Southampton. kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa xaysaynaysa saxiixa weeraryahanka Inter Milan ee Lautaro Martinez waxaana jiri kara leeyahay heshiis isdhaafsi ah. sida ay wararku sheegayaan kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa diyaar u ah in Hector Bellerin u soo bandhigto kooxda Inter Milan si uu qayb uga noqdo heshiiska Lautaro Martinez oo ku imaanaya gegada Valencia Stadium. Arsenal ayaa mid wali gudaha suuqan ka doonaysa saxiixa qadka dhexe Real Madrid ee Martin Odegaard ayadoo soo warinaya inuu xidigan si fiican u saldhigan caasimada Spain. Odegaard ayaa mid qaafican soo muujiyay bilooyinkii amaada ku soo joogay Manchester Stadium maalintii hore. tababar Mikel Arteta ayaa doonay inuu sii dheeray waqtigiisa kooxda balse ugu dambeyn wuxuu ku laabtay kooxdiisa Real Madrid kadib markii uu dhacay heshiiskiisa. sida ay sheegayso Sky Sports, Gunners ayaa weli ka rajo dhiganaya leeyahay saxiixa Martin Odegaard isla markaana si weyn waxay isha u hayaan xaaladiisa Real Madrid oo ku laabtay si weli u difaacday booskiisa Carlo Ancelotti. weli waxaa jira shaki ah fursadda uu Odegaard ka heli doono shaxda koobaad ee Los Blancos waxaana ay Arsenal ay rajo ka qabtaa sidii gacan u soo dhigi lahayn daayirkan. dhinaca kale wargeyska Isbaanishka ee Cadena Sera ayaa sidoo kale soo warinaya isla warka uu soo qoray Sky Sports. warbixintan ayaa sheegaysa in Odegaard uusan ahayn mid si fiican u xiran asxaabtiisa kale ee kooxda wuxuu u muuqdaa mid aan ku faraxsanayn kooxda isla markaana ka fikiraya doqoyada. kooxda kubadda cagta ee Lazio iyo Lucas Torreira ayaa la sheegay inay gaareen heshiis shakhsi ah iyadoo Arsenal ay doonayso xidiga inuu ku iibiso 20 milyan. صاحب البرنامج كيني وانا انت نبتقليو.